waxaa kaloo qiso lagu wariyey nin ayaa wuxuu lahaa ciyaal fara badan caruur buu lahaa waxbuu uu siiyo caruurtii waaye marka hadda ilmihii waxaad kula soo noqotay markuu waayo wax u geeyaba waaye iyo wuxuu damcay inuu iska cararo waxaad kula soo laabada waxba u haynin carar buu yiri duurka u carar asagoo doona inuu iska cararayaa nin baa ka hor yimid markaas wuxuu yiri waxaan rabaa inaad naftaada iga ijaarto shimbir baan doonayaa hal shimbir kaliya ii waraabi diinaar baan ku siinayaa ana shilin ku siinaye kaala hal shimbir kaliya ii waraabi aad buu u farxay hadee shimbir waraabintii hadii diinaar lagu helay macadu malay uu soo raacay marka uu yimid ceelkii uu tagay wadaantu u dhigay wuxuu shimbirkaan uu ii dheerjay shilin baan ku siinayaa markaasuu ceelkii uu daldal ku bilaabay shimbirkii uu siinayaa 12 buu shubayay shimbirkii ma badhargayo war wax imtixaan oo shimbirka baas waa dhargeena muxuu ninkii daal waa noogay markaasaa kurba loo taagay hadda inuu shimbirku dhargo fulo moogina shilinkiina ma helay shimbirkiina waa soo taagayo ma dhargayo waay marhaban uu cajisay markaa wuu fikiray maxaa sameeyay buu marhaban ninkii baa la hadlo wuxuu yiri inni lastu bi basharin warartu bin aadan ma hiniyo wa inma ana malakum baanahay ba'athani illahu ilayk hay ilaahi baa isoo ka diray liyurika inuu ku tusiyo sanacaka adiga awoodaada iyo tabaryaradaada inuu ku tusiyo ya ilaahay igu soo ka diray waa tabaryaradaada fiiri haythu innaka lam taqdir an turwiya dayran waxaad awoodi weyday shimbir inaad dharjiso awood tabartaadi baa lagu tusayay fa kayfa taqdiru an turzaqa ciyalak shimbirka hadaad darjin weyday ma dadka farada badan oo guriga ku nool baa darjin kartaa waxaad adiga isu wax aad awoodi karin baad balaf waxa leedahay waa la carari waa waxaad kari karin ba tabar baad u haynin way korkaagaba maaha maxay soo saaraysaa hay irjic noqo ilayhim fa inna allaha ta'ala huwa ar-raziq lahum ilahi ba irzaaqaye fawada amrahu amarkiisa buu bandhigay fawada amrahu fawad amraka da amarkaaga bandhig iyo amrihim ilayhi ila allah ilahi u bandhigo rizqigana ilahi agtiisa ka sug ilahi ba ku irzaaqaye subhanahu wa ta'ala